Assalaamu calaykum asxaabta dhammaantiin waan idin salaamay. Maanta halkan waxaan idinkaga soo jeedin doonaa si fudud ee aad Facebook u edit gareyn karto haddii uusan ku edit gareysnayn. Waxaad sameynaysaa halkaas setaysa. Waxaan u jeednaa in aysan waxba haddana edit gareysnayn. Edit profile ayaad ku dhufanaysaa. Edit profile ayaad ku dhufanaysaa. City magaalada aad ku nooshahay ayuu ku leeyahay geli ama dhammaan waxyaabo badan ayuu halkan ka weydiin doonaa. Waxaana laga doonayaa in aad geliso meesha wixii laga weydiiyo. Add work aad leeyahay waa maxay shaqadaada. Shaqada aad qabato waad dooran kartaa. Intaana waad ku dhufan kartaa. Student ayaan dooranayaa aniga. Student markaad aad save ayaad oranaysaa. Halkaad ayaad ku soo dhufanaysaa. Shaqada hadda waad gelisay. Add schoolka dhigitid geli ayuu ku oranayaa. Schoolka magaciisa halkaas waad gelin kartaa. Kuwaana waad dooran kartaa haddii aad u baahan tahay. Al-Fajri ayaan gelinayaa aniga hadda. Save ayaad oranaysaa. Sidaas schoolkaada ayaa kugu save gareysan. Add college uu ku leeyahay. Add college ka magaciisa waad gelin kartaa. Intaana mid ka mid waad gelin kartaa. University of Somalia ayaan leeyahay. Magaalada ayaan gelinaynaa. Magaalada aad ku nooshahay ayaa laga rabaa halkan inaad gelisid. Muqdisho ayaan hadda gelinayaa. Muqdisho Banaadir Soomaaliya. Save ayaan oranayaa. Submit ayaad ku soo dhufanaysaa. Dhammaan waad buuxinaysaa. Halkan hadda add school, add college and add current city dhammaantood waad buuxinaysaa. Muqdisho magaaladaad ka imaatid ayaad gelinaysaa halkan. Add relationship xiriirkaada xaasle ama waad gashan kartaa waxa aad doonaysid. Single ayaan ku dooranayaa hadda aniga. Okay. Save ayaan leenahay marka. Save. Waxaad u jeediin isbeddel weyn inuu ka jiro halkan. Hadaya ma uusan qurux badnayn Facebook-gaada markii xagga profile-ka loo eego. Waxaan u maleynayaa in aad ka faa'iidaysatay. Fadlan haddaad daawatay video-ga
channelka subscribe gare, videogana like saar. waad ku mahadsantahay daawadashadaada. dhammaantiin waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.